reer burco waxaa laga hayaa qamar iyo shaydaan baa degdega macnaha warninkii qamaraha warba gabadha sida suxul baruurka u ah buucdo uga dhaqaaqay nacala shaydaan ku yaalay dooda hada meeli alla dagaalka aaga sabab tan iyo markii ay Badaraxan soo qaaday heesteedii ahayd doodaada meele ayaa waxa ay warwar badan muujisay gabadha uu qabo haatan Qamar Suugaani magaceeda lagu magacaabo Nasiim Sooraan ayaa waxay warwar badan ka muujisay jacaylkeeda dhabta ah Qamar Suugaani inuu dib jacayl dambe ula jiro xaaskiisii hore ay kala tageen Ugbaad Maxamed Cabdullaahi Badaraxan Daawud iyo Badaraxan ayaa markay heesta soo qaaday laga dhex arkay heesteeda dhexdeeda iyadoo siida ku taabanaysa Qamar Suugaani oo ay ku qoratay dayax iyadoo ku qoratay Daawud iyo dayax macnaheeda marka la macnaayo masaaf Carabi laga dhigo waxa uu noqonayaa qamar Daawud iyadoo ku qoratay dayax qamarna u bedeshay dayax ayaa waxay Nasiim Sooraan ka eegtay dhinacyada u tira badan iyadoona warwar badan muujisay isla markaasina saygeedii ay kala xanaaqeen Qamar Suugaani oo arintani ay aad u argagax gelisay ayaa waxay reer Burco ku soo yiraahdeen Qamar iyo shaydaan baa degdega oo ay sababtuna tahay Qamar Suugaani inuu ka degdegay ayay u muuqataa furniinka inuu ku degdegay ay u muuqataa furniinka gabadhiisii hore Badaraxan oo ayahan dambe la soo baxay qurux aad u yaab badan Daawud si kastaba ha ahaatee Nasiim Sooraan oo imika ay wada joogaan ayaa ka carootay isla markaasina waxay sheegtay inay ka codsatay inuu furo ama say kala tagaan oo ay noloshaba ku kala baxaan Daawud Nasiim Sooraan ayaa la sheegayaa inay ka carootay isla markaasina ay gurigiisa ka tagtay oo imika haatan la joogto guri kale oo iyadu khaas u leedahay inay ku noqon doonto dhanka iyo Mareykanka jaalka ee deegaanka u ahayd oo ay Daawud isaga dartii uga soo haajirtay Daawud Nasiim Sooraan ayaa la sheegayaa in aad u caraysan tahay oo ay ka carootay heesta Badaraxan soo qaaday ee ku qornaa lambarka uu ku qornaa dayax markii loo fasiray uu qamar noqday ayaa waxay muujisay warwar aad u ba'an iyadoo sheegtay inuu qamarku khiyaamay haddii ay sidaa tahay isaguna waxa uu sheegay in arrintaasi aanu midba ka ogeyn oo uu ku helay doodaada meele Daawud heestaasi doodaada meele ayaa waxay si cad ugu socotaa ama gantaana si toos ah lagu ridiyo ay tahay qamarka balse Daawud Nasiim Sooraan ayaa ku qasabtay inuu heesta waxa ka soo qaado oo markaas iskaga dhicinayo doodaada meele balse Daawud qamarku heestaasi ka caga jiidaya oo Daawud heestaasi dhibsanaya ayaa waxa uu soo qaaday heesta oo imika haatan ku jirta habeyntii iyo isku dubaridkii waxayna soo bixi doontaa maalinta berri haddii uu eebidmo Daawud heestaasina weyn wada sugeynaa oo qamarku soo qaadayo misna uu kaga jawaabiyo heestii ahayd doodaada meele Daawud Nasiim Sooraan ayaa waxay sheegtay ilaa inta heestaasi soo qaadiyo ama sawir raaligelin ka bixinayo xidhiidhka uu dib uga sameeyay xaaskiisii hore in aanay ku soo laaban doonin iyadoona jeclaysatay in iskaga noqoto dhanka iyo Mareykanka oo ay stresska iyo buuqa iskaga baxdo Daawud wixii dambe arintani ka soo cusboonaada waan idin la soo socodsiin doonaa Daawud channelkana asxinta wararka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar kambalelkana furo si ay ku soo gaadhaan muuqaalada aad ku xiisaha badan ee alaaba bartan ku soo baahino Daawud channelka si share gareeya si uu gaadho asxaab aad u tira badan oo ay wadayaal inaga faa'iideystaan muuqaalkana Daawud like saar like macnaheedu waxay tahay inaad muuqaalka Daawud ka heshay isla markaasina anagana waa noo dhiirigelin iyo noo dardargelin waliba halaaba taasoo samaysay Daawud aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada fiidiyoga daawanaysid